asxaabta waa ujeediin ansalaatada geesa basbaaskii juuska salarkii saan soo qorxiy waa ujeediin waxaan leeyahay nabad iigu cuno saxa wahana maamuno janaal waxay leedahay in koraaliya filinka bilaaw ilaa dhammaad fiirsada oo nii cajibinaya hadduu alla ka raali noqdo subscribe like share comment intaba dhinaciina waaye ducadiina iyo sibadgarintiinana waa rabaa anigana dadaalkaygaan muujinayaa hadduu alla ka raali noqdo asxaabtaygu qaaliga ah daawasho wacan oo wanaagsan maca salaamo is aragti dambe oo xiiso leh bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilah calaa kulli shay asxaabtaygu qaaliga ah maanta maamuna janaal waxay nii soo wadaa baasto balbalaar iyo hilib geel iyo macaa qudaartiisa saan u sameeyaa nii tusayaa hadduu alla ka raali noqdo wixii oo dhan qaadina waa kaasaa hadduu alla ka raali noqdo tan waa hal xaboo basala kan waa yaanyo shiishiid 4 xabo yaryar oo yaanyo ah oo makiinada gacantaas ugu shiiday waa ciitumin oo hilib geela bardho yar basashaan iyo karood iyo barbarooniga 3 nooc xajoodii aa kor uga darayaa bardo waa ujeediin karood spices waxaa waaye wax walba qof walba wuxuu jikadiisa ku haysto reekoob budada ah iyo waxaa waaye filfil kabsar adi xagaajiyaal ama spices ama bahaaraad wixii jikadaada ku haysatid intaasay taa hadda soo diyaarsaday saa ujeediin asxaabta igu qaaliga ah intaasaa soo karinayaa aan isku dardarayaa dardaroogana waa ila soconaysiin hadduu alla ka raali noqdo waa ujeediin aan maleynaa kulligiis waa kaasaa maasha allah ay sala soconaya asxaabta igu qaaliga ah dabkaa shiday saa ujeediin digsiga kirkiisana way ku laadaa rabaa waa ujeediin ila socdo daawasho wacan oo wanaagsan saa ujeediin saliidaan ku shubayaa ujeediin saliidii aa kululaatay waxyar iisaa rabaa waa la karaari noqdo hilibka bisaan ku darayaa waayo waxaan rabaa inay isbeeshiilmaan labadaas hilib hilib geel waaye asxaabta igu qaaliga ah soori iyo qoraal ah ku warqaday baasto
oo khudaar yar leh iyo shiishiis oo geelaanisa dhisay hilibka firiikaa gashtaa kacbaar uu joogo barafka markuu ka dhacay hadiiba furay wuxuu igu noqday hilib geela oo caadi u jarjaran yalla asaga wuu ku macayaa baastada waa kaasaa marka inuu adkaadana waa diidayaa saas dartiisa aniga dibaan u dhigaa horta iyadoo kasisaan shiilayaa haduu ka abaar raali noqdo sorry biyo dhalay markuu hoolay marka biyahaas ilaa ugu sugayaan shiishiida ma ku shubaayo waxaa rabaa ducalo karaa noqdo xabadaas jeexaas liinta inuu ku miiro waayo waqti ma haysti iyo qalkaas inaan ku daro kadib markuu shiilno muddaday biyahaas igu qaadato waxyaroo qal ah insha allah waa isku soo noqonaynaa koo gursado asxaabta igu qaaliga ah muddada labaatan daqiiqa soo wareegatay saan joojiyey hilibkii loo shiilnay halkaasaa basashii way dhintay marka waxaan ku darayaa rabi iyo shiishkiisa halaana marka waxaa sugaynaa intay isku shiilmato ujeediin iswas ku darayaa daraya hal maro kuwan kristaan badan ma u baahnaan kala noqo sojiidin basasha ku daray waa ka damiyey asxaabta igu qaaliga ah hadda sheekada waxay noo mareysaa hadduu alo kala noqdo casiir ama juus dabiici ah saa ujeediinkan waa mid wax la yaqaano zaytuun ama jawaafa saa u taqaaniin kaniitina waxaa waaye cananaas saa ujeediin saana usoo jarjaray makiinadan ku ridayaa hal mar isku shiidayaa kadibna waa miirayaa hadduu alo kala noqdo asxaabta igu qaaliga ah daawasho wacan oo wanaagsan waa ujeediin oo maleha sadaqa waxaa waaye juusan dabiici ahayn wallaahi lama jeclo laakiin qof walbaba juuska rabo wuu samaysan karaa wixii jikadaada yaalo
laakiin aniga waxaan jeclaystay juuskan inaan ila wadaago. hadduu ala karaa noqdo soo ujeediin, kaniitina waa ujeedaa cananaas waaye. waxaan jeclahay makiinada markaan ku shubayna inay ila socotiin. waa isku dardaray inaan duugayo umaleynayay. waa kaasaa wixii oo dhan aan isku geeyey. hadduu ala karaa noqdo waa shiidayaa, kadibna waa isku soo noqonaynaa. saajeedii waa kana barafo yaraa ku daray. kan ciyaalkana gooniya uga bixiyay, laakiin kan dadka waaweyn waa barafaan ku daray. wallaahi tastigiisa lagama sheekey karo. cananaas iyo saytuun, cananaas keligeedna waa shiida kartaa, saytuun keligiisa waa shiida kartaa,
ama jawaafa keligiis waa shiida kartaa, saytuunka waaye, ama waa isku wada darsan kartaa saa jeceshahay. laakiin ani waxaan jeclaa inaan mushakal ka dhigo. weli maanta cambihii iyo wixii kale iga maqan, laakiin intaana taale intaanana ka sameeyey. qof walba wuxuu haysto wax qurux badan uga soo baxayo. wax walba qofka sameynaya gacantiisay ku xiran tahay. hadduu alla karaal noqdo waa kaasaa saxa wahana nabad ku cabaa. soo hali salarna intaas ka sameysanayna xabadaas yaanyada ah zaaid gaduud uma aha, caddaana ku jira saa ujeediin. basalkaas cad, karootadaas, salarkaas si fiican waa usoo dhaqaaya. hadduu alla karaal noqdo waa soo jarjaraya, waa soo qurxinaya, kadibna waa intusayaa. asxaabta igu qaaliga ansalaatadii soo jarjaray oo saxankaas kusoo quruxsaday saa ujeediin. oon sharaxay saas yaanyada u saarsaaray. alla karaal noqdo inta waxaan kusoo tuuray basbaas yar oo liin ka buuxiyo, basbaas cagaara. maanta wax walba waa yaryareeyey, simbilaan ka dhigay. halkaasaa daawasho wacan. asxaabtii qaaliga kuley qof walba baasto looma sheegayo saa ujeediin. kariskeeda tan waa balbalaar, baasto burka camal ay la eg tahay. kalay qof walba waxaan dhahaa cusbada carabkiisa waxay qaado. waa kaasaa hadda saxankaa kusoo diyaarinaya, miiskaan geynayaa. insha allah waxaan rajeynayaa inaa qada fiican cunteen ama wax iga faa'iideen. asxaabta aan adduunka ugu jeclahay waa kaasaa. asxaabta waa ujeediin ansalaatada geesa, basbaaskii, juuska, salarkii saan soo qurxiy waa ujeediin. waxaan leeyahay nabad iigu cuno, saxa wahana. maamuno janaal waxay leedahay in koraaliya filinka bilaaw ilaa dhammaad fiirsada. oo nii cajibinayaa. hadduu alla karaal noqdo subscribe, like, share, comment intaba dhinaciina waaye. ducadiina isi badgarintiinana waa rabaa. anigana dadaalkaygaan muujinayaa. hadduu alla karaal noqdo asxaabtaygu qaaliga ah daawasho wacan oo wanaagsan. mac salaamo, is aragti dambe oo xiiso leh.